Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabay magacaygu waa Muno waxaan jiraa 10 sano kuwani waa walaalahey kala yiraahdo Maxamuud Axmed iyo Ramlo waxa dhamaanteen wada baranaa jaamacad isku mid ah maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa la fadhiyay walaashay Ramlo maqaaxida jaamacadda kadibna waxa inoo imaaday Axmed subax wanaagsan waxaan idin hayaa war farxad leh laakiin Maxamuud xageebu aaday ma garanayo laakiin wuu ila hadlay wuxuuna ii sheegay inuu imaanayo waa kan wuu yimid waxaan u tilmaamay Maxamuud oo soo socda hadda qof walba waxaan u sheegayaa war la yaab leh kadibna waxaan u wada eegnay si xiiso leh wuxuuna sii watay hadalkiisa saaxiibkay wuxuu iibsaday doon cusub waxaad ka qabtaan inaan kariisano doontaas oo aan xeebta cabaar dhexdeeda ku wadno doontaas waa fikrad wanaagsan aan u tagno wiilkaas habeenkii markii la gaareen waxaan bilownay inaan u diyaar garowno safarkan wuxuu ahaa safarkii ugu horeeyay ee aan badda ku safarno aad baan u faraxsanay dhamaanteen waqtigu si degdeg ah ayuu nagu dhaafay Waxaan sugnay Ramlo. aniguna waxaan ka fikirayay safarkayga badda siduu noqon doono iyo meelaha aan tagi doono intaas kadib Ramlo ayaa timid waxaan ku iri maxaad u soo daahday waxay igu tiri wadada ayaa jaam ahayd kadib waxaan go'aansanay inaan safarkeena bilaabno Axmed iyo Maxamuud ayaana bilaabay inay doonta kaxeeyaan annaguna waxaan la qeylinay farxad iyo reereen waxaana diyaarsanay cunto waana cunnay kadibna waxaan shidanay muusig waxaana bilaabnay inaan ciyaarno maalintii koowaad wixii ku dhamaatay qosol cunto iyo reereen maalintii labaad bartimeedii aniga iyo Ramlo ayaa sheekaysanay Balse waxa si lama filaan ah u maqalnay gariir weyn oo ka yeeraya doontii ayaana ku dhacday dhagax markaas ayaa Axmed isku dayay inuu ka leexiyo dhagaxa doonta laakiin ku guuldareystay dhamaanteena waan caawinay laakiin waxay u muuqatay in doontu ay jabtay Ramlo ayaana cabsi daraadeed la oyday aniguna waxaan isku dayay inaan dejiyo iyada laakiin ma aanan ku guuleysan Axmed ayaana wuxuu yiri isdejiye waxuma dhacayaan waxaan wacayaa saaxiibkay kaas oo na caawin doona inaga laakiin markii uu eegay telefoonkiisa wuxuu ogaaday inuu batariga ka dhamaaday sidoo kalena uusan xasuusan lambarka saaxiibkiis anaguna waxaan isku daynay inaan la xiriirno cid kale si ay noo caawiso laakiin ateenada telefoonka ayaa ahayd mid daciif ah Ramlo oo hinteedu way sii korodhay aniguna shirkayga wuxuu bilaabay inuu gariir sameeyo waxaana iri maxaan sameynaa hadda Axmed ayaana yiraahday ma garanayo wax aan sameyno laakiin waxa laga yaabaa inaan halkaan joogno muddo dheer ilaa aan aragno qof maraya badda kaas oo na badbaadiya haddii aan cidna helin maxaan sameynaa qofna iima uusan jawaabin dhamaanteen waan aamusnay Maxamuud ayaa yiri fiiriya halkaas waa jasiirad ee aan tagno halkaas waxa laga yaabaa inaan ka helno caawimaad waxaan dareennay rajo waxaana ka baxnay doontii aan saarnayn waxaana dhamaanteen soo aadnay dhanka jasiiradda laakiin jasiiraddaas waxay ahayd mid cidlo ah geedo oo kaliya ayaana ku yaalay jasiiraddaas waxaan isku daynay inaan miraha geedahaas ka soo ridano si aan cunno laakiin ma aanan ku guuleysan sababtoo ah geeduhu aad bay u dheerdheeraayeen kadibna waan soconay ilaa aan ka daalnay Axmed ayaana wuxuu yiraahday ma sii socon karno jasiiradda cid kale kuma sugna teendooyin dhigno halkan si aan u helno qofna badbaadiya waxaan bilownay dhisidda teendooyin aniguna waxaan dhisay mid igu filan aniga iyo Raxmo Axmed iyo Maxamuudna waxay dhisteen teendo kadibna waxaan shidanay dab sababtoo ah jasiiraddu waxay ahayd mid mugdi ah waxaana fadhiisanay hareeraha dabka anagoo aamusan mana jirin wax cod ah oo aan ka ahayn dadka geedaha ka yeeraya Maxamuud ayaana istaagay xageebaad u socotaa Maxamuudow wax yar baan maqnaanayaa isiisu Maxamuud ayaana baxay aniguna waxaan u jeestay dhankii Axmed anigoo leh sidee baan u seexan karnaa jasiiraddan maxaa yeelay jasiiraddan waa jasiirad cabsi ah aadna way qowdahay hawalwelin idinka seexda aniga ayaa idin waardiyeyn doona ilaa uu waagu ka bareeyo wax xun idinkuma dhici doonaan ee seexda waxaan maqalnay qaylada Maxamuud oo meel noo dhow ka yeeraysa dibna dhamaanteen waxaan u orodnay dhankii Maxamuud waxaan helnay isagoo dhulka jiifa indhihiisuna ay isku xiran yihiin Axmed ayaana garabka ka taabtay wuxuuna furay indhihiisa waxayna ahaayeen kuwo cadaan ah aniga Ramlana waan qaylinay Axmedna wuxuu u baxay gadaal Maxamuudna wuu istaagay indhihiisuna weli waxay ahaayeen cadaan wajigiisana waxaa ka soo baxay xidido madow ah wuxuuna ku hadlay cod cabsi ah oo aan ahayn codkii Maxamuud adinku hadda waxaad ku jirtaan dhulkayga laguma yaabo dhamaantiin inaad meeshaan ka baxdaan idinkoo nool